asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacana wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba kusoo dhowaada taariikhda halgamaagii soomaaliyeed ee sayid maxamed cabdille xasan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay janalka sabskraibta rukumo oo gaambaleelka riix lana wadaag asxaabtaada oo si sheergaray. من ظروف لا قلده يوين ضرب لما قاري فرمو إيو فراش لغو قميو ضيو إيو راحو أنيقو وحندون يبادر جوين هاي ستين دباغ تمير الضيعانه الملاب ذو القرايا dingaraaradii inagoo dhacdiyuu diiftinaa la saartay dabwax gubaa dayuuradoo wixii nala dulgowdeedeshay wagii dilaacada sayid maxamed cabdille xasan wuxuu dhashay 7 bishii abriil sanadkii 1864 asagoo ku dhashay meel u dhexaysa wedwed iyo buuhoodle. 7 jir markuu ahaa ayuu barashada qur-aanka kariimka ah bilaabay. 19 sano jir markuu gaarayna wuxuu noqday sheekh oo loogu yeeri jiray. intii uu barashada cilmiga ku guda jiray meelihii uu tegay waxaa ka mid ahaa magaalada hirar, muqdisho, suudaan iyo weliba magaalada mako. intii uu joogay magaalada barakaysan ee mako waxaa macallin u noqday oo ku xirmay sayid maxamed saalax oo dariiqada saalixiyadu ku abtirsato isaga. sayid maxamed cabdille xasan markii uu ku soo laabtay berbero waxaa dhulka soomaalida ugu horreysay dariiqada qaadiriyada oo uu sheekh cabdulqaadir jaylaani ku aas-aasay magaalada baqhdaad ee waddanka ciraaq. dhulka soomaalidana waxaa hormuud uga ahaa sheekh cabdiraxmaan saylici iyo sheekh aweys maxamed. sayid maxamed markii uu soo laabtay wuxuu watay dariiqada saalixiyada. wuxuu bilaabay ololo uu dalka kaga saarayo gumaystihii ingiriiska isagoo hogan dariiqadiisa saalixiyada. sanadku markuu ahaa 1899 bishii abriil waxaa si rasmi ah loo sheegay inuu urursaday ciidamo gaarayo ilaa iyo 3,000 oo askari. 1dii bishii sebteembar sanadkii 1899 waraaq uu u soo diray qunsulkii xeebaha soomaalida u qaabilsanaa ingiriiska wuxuu sayidku ingiriiska ku eedeeyey inay cadaadinayaan dadka islaamka ah, wuxuuna cambaareeyey kuwa gacan siinaya. warqaddu sidan ayay u qorneed: hadda adinku kala doorta, haddii aad dagaal doonaysaan waan ogolnahay, haddii aad nabadgelyo doonaysaanna ganaax bixiya. maalintaas wixii ka dambeeyey ayaa waxaa loo aqoonsaday nin fallaaga ah. kadib waxaa bilaabmay 20 sannadood oo dagaal ah oo uu kula jiray talyaaniga, ingiriiska iyo etoobiya. sayidka difaaciisa ugu adag wuxuu ahaa degmada taleex. ingiriisku wuxuu halkaas ka saaray markii uu diyaarado ku garaacay. kadibna sayidku iyo daraawiishtiisii hartay waxay u gudbeen dhulka soomaali galbeed si ay dib isugu soo abaabulaan oo ciidamo cusubna uga helaan gumaystaha ingiriiskana uga xoreeyaan waddanka.